oo yo dhowr sano joogtay dalkaasi Mareykanka waxa hadda soo wararay qoliyaha Children's Service ama hay'adda caruurta loo yaqaano kuwaas oo doonaya inay caruurteeda ka qaataan maalinta berita ah other Buffalo so New York mine waxay ku nooshahay gobolkaasi New York gaar ahaan magaalada Buffalo telefonka dalkaas idin saaray hooyo Xakiimo fadlan jaaliyada ku dhaqan dalka gobolkaasi New York magaalada Buffalo waxaan in ka codsanaya hooyo Xakiimo oo telefonkeedii aan halka idin soo saaray iminkana khadka telefonka ku jirta waxaan idin ka codsanaya hooyada Soomaaliyeed u gurmada oo degdeg waliba u gurmada please walaalay magacaaga noo sheeg adeer hello Xakiimo leeda Xakiimo waxa tahay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool gobolkaasi dalka Mareykanka magaalada ku nooshahay New York ma New York ba ku nooshahay gobolka New York sama magaalada Buffalo magaalada Buffalo okay anu soo dhaw waa ugu lasunta okay magaalada Buffalo okay dibka ku haysta hooyo xaaso caruura tahay soma meeqa caruura ku joog meeqa caruura ya saddex ciyaal haysataa gabadhan Soomaaliyeed dalka Mareykankana goorma timid 16 kii baa timid okay 15 7 years baa joogtaa markaad imaanaysay Mareykan dalkee ka soo gashay ma Kenya ma Ethiopia ma okay iska daa waxa soo dhan dibka ku haystaan u gudbaynaa Xakiimo muxuu yahay dibka ku haysta gabadhi waxay ka raajo x-ray bay saaran waxay ka heleen pneumonia qaboob bay ka heleen waxay u dhaheen x-ray-ga wuxuu sheegaa qaboob ku jiro waxaa siinaysaa discharge maalintii November 17 isbitaalka liga discharge gareeyay waxay u dhaheen daawadan antibiotic C daawadan C haday daawadan ku bogsooto 10 days ay daawadan ku fiicnaato dhakhtarka ku soo celin haday oo daawadan ku bogsoon wayso qabowgi feero ku jiraa bi dhakhtarka ku soo celi MRI-aan saaraynaa haday daawadan ku bogsooto laakiin aan soo celinin markii gabadhi daawadi markaasi way fiicnaatay hata iskuul ay aaday November dhamaadkeeda iskuul ay aaday December dhan iskuul ay aaday January bay gaartay January qabow isnoojin markuu soo dhaxayaan iskuul ka reebay maalin alla jigay ku noqotay taxtarkeeda waxay u ballamiyay waxay ugu dhaaday kaale dhiiga laga qaaday ma January 31st dhiiga laga qaaday hadda waxay ugu dhaaday isbitaalka Chirlenge x-ray al soo saaro x-ray waagi la saaray soo saaray ugu dhaaday jimcadi markaan imaaday oo x-ray aan u imaaday qol baa la diyaaray qolkii wadiga lagu admit gareeyay anoo ward ku jiro leeran baan soo galay isbitaalka anoo ward ku jiro naag orday safar wadato qolada ciyaalka aan ahay ay daftar wadata ii soo gashay maxay ka rabtay waxay dhaad anaga qolada ciyaalka waayay gabadhi ballanti oo soo celi lagu dhaad soo celi waayay waxa sakees lagu furay ani waxaan dhahay goorma soo celi waayay dhakhtarka maalinta lead discharge gareeyay daawadan day ku bogsooto don't worry bay ugu dhaadaan just stay marka gabadhayda way fiicnaad way bogsootay haddana waa iska keenay x-ray-gii baan iska saarabaa marka waxay ugu dhaaday wax bay iga qorqortay waxay ugu dhaaday ilmihii kale ayaan soo fiirinabaa waxaan dhahay ilmihii kale ana guriga woodan ku jiro ilmaha maxaa laga fiirinaaday oo ilma maxaad ka fiirinaysaa gabadhi yariisa dhar ka siibay ugu dhaaday dharkaan ka siibay ugu korkeeda fiirayso waxbay ka waaysay markaasay waxay dhaaday gabadha ma jecesha gabadha waan jecelaanay markaasay dhaaday ilmihii kale wiilishi kale guriga cunto guriga ma ku taasha fridge-ga waa buuxaanay taariikh labaan soo adeegay waa buuxaanay markaasay dhaaday gurigaan aadi raba
فريجة taariikh labaad soo adeego taariikh afar way marka iimaan ka uu sheego waxay ugu dhaaday dhakhtarkeedana waa qalad annagu lama soo marin bal hal ballan aad goysid ma jirto ballan walbaba waa aadaa ilmaadu waa jecesha ilmaadu waa caafimaad qabaan they are okay you are okay don't worry Monday I'm going to close that case ay ugu dhaaday waa gartay marka dhakhtarka la hadin shalay imaaday oo isbitaal gabadhay ka socdo branchiga iyo gabadha isbitaalka clinic ka socdo waxay ugu dheen we are sorry wixii kuugu dhaxay qoladaas ku soo weerartay without reason lahaan lagu soo weeraray waa qalad waayay keeska annaga handle gareynayna saas oo ma dabayarayno annaga meel saarayna adiga don't worry wax qalad aad leedahay wax qalad kugu aragma gabadhaad annaga doctor annaga dhakhtarkooda wax walba waa okay maama fiicanaata ilmaadu waa haysataa gurigaada ilmaadu waa okay laakiin ani waxaan iyo sababta kees u furtay sababta guriga u aaday sababta ani ii soo weerartay ii weydiiyaan leey without reason and wali weydiiyay maxaad ugu soo weerartay maxaad rabtaa marka leey waxay dhahday ballan oo MRI gabadha la saar rabo raajada MRI la saar rabo raajadaas ay keenin ku markaasuu dhakhtarkeen wuxuu dhahay hadda maxay ward ugu jirtaa buu dhahay she's in the ward ay ku jirtaa dhakhtar bay ku jirtaa MRI gaas la saar rabaa kaas miyaad gurigaada ku raadinaysaa buu dhahay adiga gurigaada ka raadis iyo dhakhtarkay ku jirtaa waa gartay marka waxay leeyihiin Mondayda annagiyo qolada isbitaalka dhakhtarka iyo qoladaasay dadkan oo imaanayaan waa fariisanaynaa feelkaan xiri rabna feelka kugu furan keeska jimcadii oo iyagu kugu furan ku daba socdaa Mondaydan kaa furaynaa kaa xiraynay dhaheen laakiin ma aaminayo qolada mar hadday furaan saaska ma daba dhammaanayna waday oo odaga marka واي كلبا يعني دي سبريتين هذا واودا جوجتان وانا كلام مقنتين وحن maxaa gurigiisa asaga laga raadinaya waa isaga weydiyay waa gurigeena maxaa ka raadinay guda ilmaha ma ku visit gareeyaan ay ku dhaatay taa oo dhalada wiil waa visit gareeyaan ani aqoonaya maalin walba waa imaado waan xaawiya marriage separate ilmaha dhanana dhalay marka wuxuu dhahay waxay leedahay guriga horta daaqada wax jaban ma jiraan gurigaadun ba iska fiirin rabnaa because ilman way xaq waa aadeene qayl bay raacadini okay hadaa wada degtaan maxaa dib ku jaban hadaa wada degtaan wala degan dig malanaataas laakiin qoladaan horta sheekada qoladaan ay tayaan okay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Buffalo numberkaagi u sheeg ha Soomaali waa ku dhageysanaysaa ha waan kuu sheegay Soomaali adar waa lagu gurmaraya waan kuu sheegay si waan kuu sheegay waxaan ku dadka halka jooga yaa ku soo gurmanaya waan sheegay live kan soo galay dadkii baa ku dhageysanaya Buffalo New York waxaan rabaa inay ku yimaadaan lawyer lagu keeno lagu difaaco digal ilmaha laga qaadanaya jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Buffalo gobolkaasi New York fadlan u gurmada walaashin magacaagi Xakiimo xaqa adra ka xishoonin anagu meeshaan wax ceeb laga ma sheegin ilma Soomaaliyeed oo cadow ay qaadanayaan ma rabnaa inaan difaacno adar ma gartay ilma Soomaaliyeed marka laga qaato Soomaaliyeed waa waray dhig hadda marka waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed gabadha numberkeedu waa u sheegadeen 716 465 4938 ku cilaadeen 716 465 4938
تضبو هل لح أفر لح شن أفر سقال صدح سديد تضبو هل لح أفر لح شن أفر سقال صدح